بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الغني تريبل waxyaro aan arkayaan raba in la wadaago waxaan fiirinayaa mogtahay waxyaabaha bitcoin kaligeed iska socotaa anything else any asset oo crypto ah waa bearish waxaan arkay marka indhahayga ay qabteen in dogecoin ayadana laleeyahay waa bullish badanaa bitcoin markay kacdo doge ayadana bullish iska noqotaa halkaa marka waxaan fiirinayaa hadduu ilaahay idmaayey chainiska waxa ka dhex socda so markaan bullishka arkay for example Tron oo kale markaan fiiriyo Tron datadeeda waa dhammaystiran tahay mostly bearish uu leeyahay mifad waa fundamental analysis waxaan samaynayo toolskana waa tool aad u baahan tahay qasabta inaad hesho haddii aad rabto inaad fundamental analysis samayso markaad Tron aan ku dhufto kale Tron macluumaad badan ay helayaan you see all this macluumaat holderska inta profitka ku jirta dadka hadda haysta waxyaabahan oo macluumaat deep dive aan sameynaya hal mar deep dive markaan sameeyo adresyadan fiirinaya mar waxa adresya cagaar ah aad u jeedid waxa waa adresya faa'iido ku jira kana waa at the money kuwan hadda lacagtooda hadda soo xaroonaysaa kuwana waa out the money waa in at and out toolkan intaas ku siinaya marka toolkan anigoo isticmaalaya oo toolkan fiirinaya waxaan arkay dhammaan inay wada bearish yihiin halka shay oo altcoin waa altcoin-ka kaliya ee bullish toolkan uu leeyahay waa dogecoin laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dogecoin markaan ku dhufto informationkii ma hayo waladyada iyo sida loogu kala jiro iyo sida loo kala haysta iyo hadda ma hayo kaliya wuxuu leeyahay waa bullish marka macluumaadkii xaafi iga yihiin waa fundamental analysis-kayga waxaan u baahanaa ilaa saddex tool kale inaan isticmaalo qaarkood lacag la bixinayo si aan u ogaado deep down waxa ka socda tokenkaas ama coinkaas aan rabo inaan maalgashado hadda dogecoin markaa intaan arkay oo fundamentalkaygii xoogaa meel macquula aan soo gaaray aan ku kalsoonahay fundamental analysis-kayga in bullish uu yahay waxaan u gudbaya technical marka waxaan raadinayaa dogeaan raadinayaa technicalka markaan sameynaya kow waxaan ka bilaabayaa hadduu ilaahay idmaayo trendiga intii u socdaa trendigii waad ujeedaa wuu soo daatay hadda waa la kala firiyay reversal aan dhahay sidaa darteeda markaa trend line sameynaysid horta fiiri dhalinyarada soomaaliyeed ee badanaa iskuulaadka waxaad u malaysaa hal macallin inuu wax baray trend line markaad saaranaysid meel walba trend line inaad saarto uma baahnid horta sawirka guud trend line saaro sawirka guud waxaa raadinaysaa marka swing high meesha ugu soo sareysay la taabtay kan waa swing high meel sare la taabtay meel sare la taabtay meel sare la taabtay meelahaas isku xirxiraysaa marka wax weyn maaha inaad you know 3 bilood 6 bilood lagu baramaa waxaan swing high waa kuway waa meelaha ugu sareeyay haddana swing low meelaha ugu hooseeyay very easy reversalka meeshuu ka dhacay meeshuu ka kala wareegto waa halkan aniga stockan ka imid stock this is how we do it stock that fiirisid this is how we do it swing low badana isku day xoogaa you know multiple touch inaad heshid swing low or swing high swing low ja shape ay soo baxay muuqaal ay soo baxay muuqaalku ay soo baxay line kan waa line horizontal ah waa support line line kan waxaan u aqaanaa trend line waa trendigayga line ku socday trend line kaygana waxa waaye waa descending hoos u socdaa taa waxay cadaynaysaa marka in aan haysto triangle oo descending ah alright isla markii aniga hoosha wada waxaan arkay meeshana waxaan ka arkayaa qaliro koobaabin intana waxaan arkayaa rounding bottom wax wareegsanaan arkayaa rounding marka roundingan inuu sax yahay in kale another tool aan iska isticmaalaya bal curvigaan soo qabsado waxaan round saxan miya alright kan qabo kan halkan dhig aniga badanaa without fundamental wax isku taabto reedka ID baa ka qaata baalka waxa chartiga ID baa ka qaata rounding sidoo uu wareegan yahay fiir uu qurux badan yahay rounding bottom la yiraahdaa waa wareegan yahay wareegan dhig ma leeyahay marka qaban handle ma noqonaya yes dhig waa leeyahay dhigtiisa aawe dhigtiisa waa tana qaban handle noqotay marka baash dhigtiisana waa tana so now waxaan u jeedaa shape-kan waa muuqaalkan waa the most bullish shape out there waa cup waa bakeeri iyo dhegtiisa bakeerigan iyo dhegtiisa aan neckline u yeelo qooran u sameynaya marka qooran u sameynaya neckline u sameynaya qoortiisa waatan aan leeyahay laakiin kalarka xoogaa bedelaya kalarka jaallo aan ka dhigto qoortan marka waxaan rabaa qoortan
bakeeriga calooshiisa raba inaan fiiriyo marka price range-ga qaadanaya waxaan leeyahay saaxiibo inta ka bilaab ilaa iyo xagga meeqa waa boqolkiiba wuxuu leeyahay waa 9. Are you serious? su'aali xoogaa waa 93 boqolkiiba. Okay, 93%. marka price range-gana rajaynaya inuu kaco marka halkaasaan dhiganayaa marka haddii lacala cup and handle-kan neckline-kiisa la jabiyo meeshan confluence ka dhacaya arrintan confluence loo yaqaanaa descending triangle-kiina la jabiyo waxaa macquula intaas in la boodo now in bakeerigan qoortiisa ay sax tahay waxaan hubsanaya haddana Fibonacci aan sameynaya Fibonacci retracement direct waa kana Fibonacci-gii waa swing low-gii iyo swing high-gii oo kaa ah aan Fibonacci-gii saartay kadib waxaan ogaaday meesha laga noqday ee dhagta samaysay waa 38.2-gii percentile-ka waa alright Fibonacci-gii hadda waxaan rabaa inaan sii ogaado Fibonacci extension wax la yiraahdo jiro oo ah haddii kan uu kacayo lacala kor uu sii aadayo ilaa iyo 1-ka raadinaa marka meeshaas waa meeshii faa'iidada aan kaga bixi lahaa Fibonacci extension-ka I don't know inaa isticmaashaan in kale so swing low-geygii aan ka baxay swing high-geygaan tagay meeshii ugu dambeysay lagu soo laabtaan tagay so 1-ka intuu ku aadan yahay marka sheekado dhan waxay ku biyo shubanaysaa $1 aan haystaa $1 iga waalwaalaysa waxaan soo qaadanayaa hadda buraashkaygii this is the area aniga take profit ah marka this is the area take profit ah waa area 1-ka areadaas take profit ah si aan kan u xaqiijiyo marka indicator-raan ku darsanaya indicator-ka koowaad waa volume-ka waad u jeedaa hoose volume-ka in cagaarka ay xoog yeelanooyin ay soo socdaan volume-ka waxaa kaloo kusii darsanaya indicator kale MACD la yiraahdo MACD markaan fiiriyo MACD waxaan rabaa MACD line-ka MACD-ga ah inuu MACD line crossover la yiraahdo alaabtan kana waa signal line 0 hadii ay ka sareeyaan histogram-kan waad u jeedaa firaaq xoogaa waa soo soconaya histogram-ka line-kan waa histogram waa space-ka u dhaxeeya MACD-ga iyo bahalka muxuu ahaa signal line-ka marka line-kan burtuqaalka waa signal line-kan oo blue-gana waa MACD line crossover-kan waxay sameeyeen halkan markii la marayo crossover sameeyeen halkaas markii la marayo waa goormee crossover wuxuu dhacay halkaas markii la marayo halkaasna waa halkan markaas waa markay bullish noqoto baasha 0-guna waa laga sareeyaa sidaa darteeda that's another indication oo ii sheegaysa confluence aan meeshan ku haystaa MACD-gina wuxuu ii sheegayaa bullish yahay igaarkaygiyo warka waa cad yahay MACD-gii ka saar meeshan RSI-ga fiirinaya iyadana RSI-ga muxuu leeyahay